waan waan maxaa lagu dhahaa luqadda ingiliishiga waan waan ama wada hadal laba dowlad oo waan waan u socoto laba qofood oo waan waan wada hadal ka dhaxeeyo luqadda ingiliishiga laga rabaa waan waan wada hadal waan waan okay waan waan wada hadal luqadda ingiliishiga waxaa loo yaqaanaa negotiation waxaa laga wadaa waan waan negotiation okay ma dhahde ambalyo waan waan ama wada hadal negotiation aan lahaa waxaa laga wadaa wada hadal laba qofood u dhaxeeya ama dowlad u dhaxeeya mas'uuliyad maxaa lagu dhahaa luqadda ingiliishiga mas'uuliyad ayaa kaa saaran inaad ardada wax barto mas'uuliyad yes mas'uuliyad luqadda ingiliishiga waxaa lagu dhahaa responsibility mas'uuliyad responsibility okay la xisaabtan maxaa lagu dhahaa luqadda ingiliishiga la xisaabtan ama isla xisaabtan iskuulkan la xisaabtan ma laha ardayga wuxuu rabo iska sameeyaa okay dowladda la xisaabtan aa loo baahan yahay qof walbaba inay la xisaabtanto la xisaabtan okay la xisaabtan luqadda ingiliishiga waxaa lagu dhahaa accountability waxaa laga wadaa accountability waa la xisaabtan ama isla xisaabtamid qof walba wuxuu sameeyo waa la xisaabaa xaggee geysay qofkaas maxaa ku samaysay accountability isla xisaabtan dhexdhexaadiye maxaa lagu dhahaa luqadda ingiliishiga dhexdhexaadiye qof oo laba qofood dhexdhexaadinayo arrintooda galayo ama laba wadan oo khilaaf ka dhaxeeyo arrintooda galayo dhexdhexaadiye luqadda ingiliishiga waxaa lagu dhahaa mediator waxaa laga wadaa dhexdhexaadiye mediator afhayeen maxaa lagu dhahaa luqadda ingiliishiga afhayeenka dowladda ayaa wuxuu sheegay afhayeenka madaxweynaha afhayeenka ra'iisul wasaaraha afhayeen luqadda ingiliishiga waxaa lagu dhahaa spokesman waxaa laga wadaa afhayeen afhayeenka hadduu dumar yahayna waxaa la dhahaa spokeswoman iskaashi maxaa lagu dhahaa luqadda ingiliishiga iskaashi ama wada shaqayn iskaashi waa ku mahadsan tahay wada shaqaynta waa ku mahadsan tahay iskaashi ayuu loo baahan yahay haddaad taqaanid comment ku soo qor qofka ugu horeeyana bin ayaan saari doonaa iskaashi